بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن wanaagsan khiyaartayda qiimaha iyo qadarinta mudanow waa mar kale iyo barnaamijkeeni dal jiro inta badan aanu kaga faaloono arrimaha Somaliland ka jira guud ahaan Somaliland dalalka la jaarka ah siyaasadda geeska Afrika kuwa caalamka iyo mandaqada aynu ku xeeranahay aynu ku noolahayba waxaanu inta badan ku soo qaadanaa hadba hal doorka reer Somaliland ee aanu aragno inay bulshada wax u korni kareen isla markaana indheergaradka ah ee ummadda wax u sheegi kara waxaa madashayna gula sugan Mustafa Maxamuud Qodax oo siyaasi reer Somaliland in badan u soo shaqeeyay qaranka Somaliland xilal kala duwan ka soo qabtay imikana sidaan filaya kamida ururada siyaasadda Somaliland ku soo dhawaan Mustafa stuudiyaha TV iyo barnaamijkeenan Mustafa bal ka waran Somaliland halkay maraysaa 2024 ku jirnaa marxalado kala duwan baynu soo marnay oo burbur lahaa oo dhismo lahaa oo kabasho lahaa aragti ahaan Somaliland halkay jihaday u socotaa halkay maraysaa maanta bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantahay wari Ahmed runtii Somaliland jawaabta kooban marka hore intayna waxba falanqaynin halkay maraysaa marka laga jawaabo intay jirtay marka la eego iyo xaaladaha ku soo duruufahay ku soo jirtay waa meel wanaagsan bay maraysaa marka la qiimeynayo maartay waxa la eegayaa fursadihii aad heshay aad ilaa hadda haysato fursadaha hore u soo heshay ka faa'iideysan karaysay iyo caqabaadkii sidaas oo kale nolosha mar walba waxa jira fursado ku saamaxaya inaad horumar gaadho iyo caqabado ee kula dagaalamayo oo u baahan xirfado iyo maartay taba aad kaga badbaado marka fursadaha iyo maartay caqabadahaba Somaliland ay soo martay marka labadaba la eego fursadaha haysatay inay horumar ku samayso ilaa hadda iyo caqabadkii ay ahayd inay ka badbaado dee maskax iyo aqli iyo maartay xirfad kaga badbaado marka labada la isku daro Somaliland maxsuulka aynu hayna waxa weeye inay meel wanaagsan marayso Somaliland xaqada wasda waayan markaynu intaa ka nimaadno waraysi guud iyo warbixin guudan waxaynu u jahaysanay Somaliland ahaan arrimo doorasho waxaad moodaa in dalkii markay ka bilaabmeen olole iyo arrimo doorasho sideed isleedahay doorasho xor iyo xalaala oo ka maran qabyaalad iyo qaraabakiil isla markaana ummaddu ku doorato mas'uulka ay u arkaan inuu mas'uulkooda hogaamin karo sidee ayay ku dhici kartaa baad isleedahay bismillah wallaahi waa sidaad sheegayso dhibaatooyin hadalkaaga dee macnaha su-aashaada anigu markaba waxaan ka dareemayaa maartay dee mar haddaad qabyaaladii soo qaaday iyo dimuqraadiyaddii iyo maartay doorashooyinka qofka markaba siyaasiga maskaxdiisa waxa ku soo dhacaysa maartay waxyaabaha caqabadaha ku ah inaynu qofka iyo aragtidiisa iyo mabaadi inaynu maartay wax ku dooranno ayaa iyo dee inaynan ku dooran ayaa markaba maskaxda qofka siyaasiga maartay ku soo dhacaysa runtii doorashooyin baynu maartay soo geli jiray iminkana gelinaynu diyaarsanay Allah inoo fududeeyo mid waa iska caamo dalalka nugul oo dhan ee maartay ay sideen oo kale bariga Afrika ba aan idhaahno ama Afrika ba aan idhaahno ama Asia ba qaar badan oo ku yaala aanay wali maartay dimuqraadiyaddooda iyo shuruucdooda doorashooyinka aanay aad u maartay adkeyn ee aanay cagahaada ku taagnayn oo dhan markii doorashooyin soo dhawaadaan way ruxmaan dalalkaasi inaguna kuwaasaynu ka mid nahay iyadoo runtii markaad eegto intaynu jiray iyo intaynu practice garaynaynay ama aynu ku dhaqmaynay doorashooyinka markaad eegto inagoo ka fiican oo la qiray inaynu dalal badan oo 100 sano ka badan kusoo dhaqmayay doorashooyinka ama dimuqraadiyadda practice garaynay inaynu ka fiican nahay iyadoo adduunka inoo qiray haddana waxaa jira waxyaabo dee maartay oo common issues oo aynu la wadaagno dalalka ama aynu la jaarkanay ama iska dunida saddexaad ay reer galbeedka u yaqaanaan oo ah markay doorashooyin soo dhawaadaan in dadku maartay ay cabsi iyo halis dareemaan
iyo in buuq ka dhaco oo la isku yaaco imanka dalalka bariga Afrika dalalka aadka wax sida fiican loo doortay la aaminsan yahay inay dimuqraadiyadda ka jirto dhalinyarada ahaatee Kenya oo kala kamid ah waad aragtay Kenya inay marar badan maaragtay markay doorashooyin dhacaan in buuq dhaco oo maaragtay isjiidad ka dhacaan haddana runtii way inta badan way ka badbaadaan inkastoo ay marar badan dib u dhac ku keento sidaas oo kale Somaliland inkastoo ay doorasho ku dhaho intuu dagaal ka dhacay la isku diri jirin haddana dadku xoogaa halis bay yar dareemaan oo waadiga arkay TV-yada iyo marka daawato qofka waddankan ku cusub ama qurbaha iyo meelaha jooga ama aan jooginba markuu arka siyaasiyiinta iyo qaabka qabiilka ay wax u abaabulayaan iyo dad badan oo xil ka sahayn oo siyaasadda ku jiro oo maaragtay aan dalka u tuurayn iyo wuxuu soranaya waa la isku yaacaya marka runtii waxa ka dhasha caqabado dhaqaalaha ka dhasha markay doorashooyinku soo dhawaadaan iyo buuqa iyo hanjabadahaas markay bataan caqabado dhaqaalaha ka dhasho oo waliba dadka danyarta ah ee maaragtay nolol maalmeedkooda uu ku xidhay waxyaabaha yoomiyaha ah ee transactionkan maaragtay lacagta iyo maaragtay waxyaabaha dee yoomiyaha ah ee dadka ku nool ganacsiyada waaweyn iyo dee ama aan shaqaale dowladeed ba ahayn saameeya oo dhaqaalahooda saameeya oo ay istaag gasho lacagtii istaagto oo qofkii guri dhisanayay matalan lacagta kaashka haysta uu israado armay dee adigoo isagoo qabiya ah oo dhexda marayaba la isku yaacayo uu lacagtii sirad haysto kii jaga iibsanayay oo israaba hayska gelin lacagta dhulka oo intaas wax dhacaan lacagtaadi hayso marka runtii way waxyaabo badan oo dhaqaalaha saameynaya maslada Mustafa xisbiyadeenii iyo asxaabtii mucaaradku inay iyagu sii tarminayaan qabyaaladii iyo inta badan imika waqtigan ay soo dhawaatay doorashadu waxaan maqlaa maantana reer hebel baa soo galay maantana reer hebel baa ku soo biiray maslada qabyaaladii wali kamaynaan korinoo xisbiyadii iyaga sii tarminaya طبعا way jirtaayo wasiyaasiintii aan ku sheegay markii hore yar arab dhayn ku lahayn ana arab dhayn ku lahaa matalan wallahi dhibaatooyinka iyo khalkhalinta dadka waxa ka qayb qaatay siyaasiyiin maartay aan xilka sahayn ayaa qayb ka tahay inta badan inaga waad arkaysaayo marka xaqiiqda ma tawajahdo barnaamij lama iibiyo ururadeena iyo xisbiyada iyo dadka tartamaya dadka barnaamij kama iibiyaan oo dee waa inaad moogtay marka haddaad mucaarad tahay haddaad maxaafid tahayna oo kuwa dowladda markaa jooga tahay waxyaabihii aad ku soo ololeysay waa inaad maaragtay dee waa inaad ka dhigataa milestone iyo midaad waxaad gaadho iyo dee waxaad marka haddaad gaadhi weyda sababayso oo aad maaragtay haddaad fulin kari weydo iyo waxaad fulisay waxaa looga baahan yahay dadka had iyo jeer cidda guulaysataa inay taraagaa ku taagnaato dariiqaa raacdo cidda mucaaradkee doonaysa inay kuwaa bedeshaa ama ka ridata xukunkana waxaa la doonayaa inay mabaadi'i ideolojiyada iyo waxyaabo ay isleeyihiin kuwaasaa gaari waayay oo ay qayb ka tahay barnaamijkii ay ku ololeysay markaa xukuumadda jirta oo dee ku dhaliilayaan waxyaabahay gaari waayeen iyo waxyaabo cusub oo iyagu ay kaga duwan yihiin mabda ahaan oo ay leeyihiin arrintaa dee siday u waajaheen anagu si ka duwan baa waanu waajahaynaa dhaqaalaha dalka oo kale sidaasay u waajahday xukuumadda imanka jirta anagu si ka duwan sidaasaan u waajahaynaa waanu ku kobci karaa dhaqaaluhu oo dee sababeeyaan dadka tusaan soo galeytiga iyo dadka maaragtay dalalka jaarkanay inagaga furan qaabkaasaanu allan ula dhaqmaynaa ama waanu joojinaynaa ama waabanu dee shuruuci kalo noocaasanu ku dhaqaynaa adigu tusaalemanku waa ka dhiganayaa waa inay mabaadii jiraan ay jiraan ay xisbiyadu runtii ku kala duwan inay iibinayaan ma jira imanka innaga waxaad arkaysaa siyaasi xilka laga qaaday dhowaan xukuumaddu imanka xil ka qaaday xisbigana ka tirsanaa markaa talada haya oo immediately ugu beeray xisbi kale oo maaragtay kii kasoo horjeedaya iyo mid mucaaradka kusoo jiray 10 sano oo maaragtay isaguna mar qura xaggan kusoo biiray ama inta xil loogu yeeray yimiba ama si kalaba dad halkaa joogo isku dhaceen maaragtay kaga yimi adduunka way iska adagtay inaad aragto dad mabaadii xisbi aaminsanaayo xisbi kale isaga tegay way aad bay adagtay inaad aragto inkastoo runtii innaga iyagu ay diin ka dhigteen dimuqraadiyadda dadka hadda kale reer galbeedka iyo dadkan waxaanu ka dhaxalay innaga waxa kaliya ahayn isbedbedelin innaga ay tahay maartay in lagu dheganaado ay tahay diinta islaamka oo waxaan kale ka sokeeyo dhan qofka halku doono iska mari karo haddana yeelkadeedee kulli sharaf ahaan siyaasadda nooca siyaasadeed practice garanaysaa maadaama aad tiri habka xisbiyada badan baynu qaadanay dee waa inaynu waxyaabaha aan khaladka ahayn ee maaragtay waa inaynu kaga dayanaa dadka in waxaan kasoo minguurinay oo ah dee inaad mabda'a lahaatood xisbigaad ka tirsanayd iska sii ahaataa runtii sharaf bay tahay markaa xisbiyadaa ka qayb qaata waana barnaamij la-aanta inta badan inay qof uun ku taagnaadaan oo qof caayaan
ay yidhahdaan ama reer hebel baa halkan jooga ama reer hebel baa halkan jooga ama hebel baa sidan ahoo ay waxooda maaragtay ay qofeeyaan waa runtii waa barnaamij la'aanta aad iyo aad dadka inta badan arrimaha siyaasadda falanqeeya ama u dhow daloola arrimaha siyaasadda Somaliland tusaale ahaan xisbiga wadani oo kaloo isbahaysi dhawaan sameeyey waxay yidhaahaan ma jiraan wajiyo cusub oo dee lagu dooran karo ama aan xil hore u soo qaban oo de inta badan waxay u badan yihiin hadday golo wasiiraa yihiin iyo dee musharaxa madaxweyne oo inka badan dee 8 sano soo hayay jagadayan gudoomiyaha golaha wakiilada ma kula tahay ama ma jirtaa aragti ka duwan taaynu maanta arkayno ummadii ku dooran karto aad isleedahay ummadii way u soo bandhigayaan markaynu guud ahaan isku qaadno isbahaysiga iyo siyaasiyiinta ama mucaaradka bacaynu dhaa oo intaynu imika ka hadlayno Axmedow runtii mar haddaan barnaamij jirin lagu kala duwan yahay oo mucaaradku maanta aanay dee waxyaabo badan oo ay kaga duwanaan doonaan xukuumadda imika jirta aanay soo bandhigeen waa ta keentay in qofku xaggana iska geli karo xaggana iska geli karo maadaama jirin mabaadi lagu kala duwan yahay siyaasiyiinta imika xisbiga mucaaradka ee wadani ku jirta oo kale haddaad eegto heavyweight-ka kuwa siyaasiyiinta weliba dee culculus dhalinyarada iyo dee taageerayaasha xisbiga iska daa laakiin siyaasiyiinta dee muuqatee magaca leh dhammaantood waxay ka tirsanaan jireen ama 95% in ka badan waxay ka tirsanaan jireen xisbigan imika talada haya kulmiye weliba waqti horeba gaari mayno oo kulmiye dee dowladdii hore ee siiraanyana kulmiye ahayd intaa ka horna 10 sano oo wuxuu soo jiray oo mucaarad ahaa buu soo jiray intaaba inagoon ka hadal xukuumadda imika Muuse Biixi hogaamiyo ee 7 sano jirtay ayay 20 ama 30 in ka badan oo xilal sare ka soo qabatay oo xilalkii markii ay ka tageen galay imika waxa jireen wadani ku jira marka daruntii waad qoslaysaa markaad aragto nin shalayto halkan wasiir ka ahaayo intuu halkaa tagay le ummaddan isbedel bay u baahan tahay iyo dalkani badbaado u baahan yahay marka waa runtii way dadka laftiisina dadkii shacabka ahana waxa iyo dhalinyaradiina tababar xun oo siyaasadeed bay u noqonaysaayo waa lagu confuse garoobayaa in dee ninkii shalay halkan joogay markuu halkan tagu isbedel noocee maxaa aaminsan tahay halkan marka mashaqadii markaad halkan joogtay shalay wasiirka ka ahayd dowladdana qaban jirtay mid ka duwan baad qaban doontaa marka runtii intaynu ka korayno siyaasadda in maaragtay manfac laga raadiyo oo qofku shaqo uu maaragtay biil ka dhigto uu ka dhigto aad iyo aad waxaan istahay horumar la gaari maayo aad iyo aad way inta haddaynu kaga nimaadna arrimihii gudaheena iyo doorashooyinkii dhowaan waxay Somaliland iyo dowladda Itoobiya kala saxeexdeen isafgarad aan weli dhaqan gelin dhamaystirkiisu oo ah in Somaliland ay hesho aqoonsi caalami oo dowladda Itoobiya ay siiso Somaliland ay Itoobiya taa beddelkeeda siiso bad cayiman oo Somaliland ay ka hesho faa'iido intee leeg baa ugu jirtaa isla dalka heshiiskaas wallahi faa'iido badan baa ugu jirta hadduu hirgalo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu maaragtay sida aynu filayno aynu maaragtay in inaga reer Somaliland ahaana ay faa'iido noogu jirto dadka reer Itoobiya ay ka faa'iidayaan dad saaraynu nahay inay maaragtay inuu u dhacayno ilaahay ka rajaynayna horta faa'iida ku jiri doonta runtii in Somaliland weliba dee faa'iido u yahayna wax ku cadaynaysa oo inagu weliba taynu nagu kelina ay badan tahay inaga iyo Itoobiya baahiyaha aynu qabno inaynu maaragtay caalamka la xidhiidhno inaynu la ganacsano inaynu maaragtay qaran dee jiro adduunka ka mid ah noqono Itoobiya dee intaa waxyaabo badan bay iyada haystaa imika iyada keliya imika waxa inaga ay inu isdhaafsanayna u baahan tahay waxa weeye inay maaragtay marin badeed biyaha badda ay ka gaadho hesho hadday xagga ammaanka noqoto wax kasoo degidda hadday noqoto halkay wax ka dhoofin leedahay saliidaheeda iyo wixii kale ay marin lahayd hadday noqoto ay isku hadlayso oo heshiis dee caalamiga adduunka ogyahay uu ka dhexeeyo iyada intay u baahan tahay waa intaa inagu laakiin dhowr waxyaabood baynu Itoobiya imika aynu uga baahno oo dhinacan ka eegayeen ilaa inaga faa'iido badan bay noogu jirta koo waxaynu ka eegnaa inagu qodobka koowaad ee maaragtay heshiiska shuruudda ahayn noo ku xidhnay aqoonsigu ahayo waa kaynu ugu baahida badan nahay maanta Somaliland 3 sano jirtay inta badan dowlad cagaheeda ku taagan oo dhaqaalaheeda ha iska yaraadabee maaragtay iyadu generate kale soo samaysa ay ahayd ammaana adduunka oo dhan isku raaco doorashooyin dimuqraadi ah oo wanaagsan qabsata waxyaabo badan oo dowladda la ictiraafsay aanay haysata haddana waxyaabaha inaga dhinaayay aynu u dhintinaynay runtii wax dabarkayna ugu xidhay waa ictiraafka kowka kaa waynu helaynaa dhaqaale ahaan dee waynu koraynaayo inaynu Itoobiya oo kale oo 120 milyan inaynu la ganacsano oo aynu maaragtay
marin adduunka aynu ka galana ay noqoto saaxiib dhowna aynu la noqono oo siday dalal badan oo geeska Afrika uga faa'iidi jireen aynu uga faa'iidno iyo si ka badan aynu uga faa'iidno xagga dhaqaalahana wax badan baa runtii ay noogu jira adduunka alliance si wuxuu socdaa alliance iyo inuu xulafooyin samaysto uu amnigiisa ku ilaaliyo NATO wadiga arkay inaynu xitaa Ethiopia de heshiis military oo aynu maartay wixii danaheena gobolka aynu gacan saar yeelano runtii iyadana xagga security-ga faa'iidooyin badan baa inoogu jira inaynu gacan saar la yeelano oo de aynu mutual maartay interest aan cidna lagu dulmeyn oo dana isdhaafiya inaynu maartay Ethiopia la yeelano marka runtii de wax kale markaad ka daysay imaka heshiiskaasi Somaliland meeqaam ahaan sumcadeedu halka adduunka ka taagneed halku geeyay ayaad arkaysaa cadow badan oo Somaliland lahayd oo isnabi jiray baa godad ka soo baxay oo arkaysaa imaka de qayrada ka dhacaysa Soomaaliya oo hogaamiyayaasheedu aanay meel loo soconin oo halka joogeen ay dayacan tahay waxa kaliya siyaasiyiinta reer koonfurta isku raacsanaayna ay ahayd halkoodaas inaan waxba noqon cid kalena inaanay maartay sida bahashan la baqashay la wax baqali mana dhasho wax dhalana ma doonto inaanay halkaana u talinin cid kale oo bariga Afrika kula nool oo magaca Soomaaliyeed meelun ka soo gashana ani wanaag la rajaynin waad arkaysaa siday maartay arrintaa uga qeeyeen iyo cadaawadda iyo tallaabooyinka qaadayaan dalal kale oo bariga Afrika ah oo amaan jaar hayno xitaa magaca qaarkood in la leeyahay dadka Soomaalida ay daarkaysaa oo imika Djibouti oo kale arkaysaa wax kalena runtii maaha cidayna wax ku sameynay iyo cidayna doonayna ma jirto macnaha Somaliland baa halkay taagneed ka dhaqaaqday marka cadawgaagu markastood sii xoogaysato ama sumcadaada korodho cadawgaaga iyo xaasidkaaguna uu ka naxayaayo dee tallaabooyin uu kaga hortagayo ayuu qaadaya marka runtii dalcad maaragtay adagoo Somaliland ay waxay maraysaa ay maaragtay ku xaqiijinayso inay dawlad madax bannaan oo adduunka laga aqoonsiiyey noqoto 3 sano markii ugu horeysayna ay halkaa gaadhay runtii oo aan runtii ku ammaanayo ku hambalyeeyo madaxweynaha talada dalka haya inuu waxyaabo ku dhiirasho leh oo maaragtay aan dad badan ku dhaceen inuu sameeyo anigoo xitaa tusaale ahaan maxaafida maalintii 1 January madaxweyne Muuse Biixi tagay Ethiopia heshiiska galabnimadii inta lagu dhawaaqay maqlay sidii wax shoog qabsaday oo kale ayaa noqday ilaa 3 saacadood baan marka xitaa dhalinyarada iyo dad badan oo dad qof siyaasi ah yaqaan markii su'aaliga weydiinayaan waa sideen iyo waxaas ayaan ka jawaabi karin lahaa wallahi balayno horta yareegno runtii in la yiraahdo wixii laynagu soo koriyay iyo wixii aynu maartay ku soo jiray foobiyadii aynu Ethiopia iyo wixii layna kala galiyay min mar qura lagu yiraahdo badeena oo waliba in badan la hadlayo la Ethiopia doonaysa in mar qura lagu yiraahdo badii baa Ethiopia la siiyay xataa aniga markii horeysay naxay laakiin saacado iyo maalmo ka bacdi markii de wararna waxyaabana soo baxbaxeen arrintiina analysis gareeyay la rogrogay dhinac walba wax laga eegay anaga lafteedii aanu maartay discussion badan ay ka dhaceen aanu golayaal badan laga sheekaystay waxaanu aragnay arrintaasi faa'iidada ay Somaliland runtii u leedahay baanu aragnay marka inuu madaxweynuhu arrin noocaas oo runtii aad u adag oo dadkeena xitaa ay maartay maalin iyo lababa ka hadi kari waayeen oo shoo ku noqotay laakiin aan hubo qof kasta Somaliland jecelnay marka uu hubo in arrintaasi arrin Somaliland meel wanaagsan geysay inay tahay ay runtii ay markii hore ku noqotay arrin adag oo shooga waana sababta runtii anigu aan u go'aansaday imaka inkastoo maxaafid ahaa laakiin haddana aanan kulmiye ka mid ahayn inaan xisbiga kulmiye ka mid noqdo kana shaqeeyo in Muuse Biixi termka labaad ee xaq u leeyahay doorashada inuu soo noqdo si continuationka iyo inuu arrintaa fiican ee uu sameeyay halkeeda looga sii wado runtii oo caqabado badan oo dalkan ku xeeran oo dhibaatooyin oo imika la soo dirsay ana aaminsanahay markan eego tartamayaasha ula tartamayo inuu kaga fiicnaan doono oo kaga fiican yahay runtii lana soo tijaabiyo nin maaragtay imika aynu baranayna aanu ahayn marka waxaan istahay Somaliland MOU marka la isku soo xoriyo dambu yahay meel wanaagsan uu geeyay waxaan rajaynaynaa inuu hirgalo waxaan ku faraxsanahay in Ethiopia wali arrinta maaragtay ay ku adag tahay oo culays kasta oo diblomaasiyadeedu Soomaaliya ay samaysay iyo Soomaaliya saaxiibadeed ay sameeyeen in Ethiopia u dhabar adagtay iyadoo eegaysa faa'iidadeeda iyo faa'iidadeena waanu ku qabno iyo danaha dalalka bariga Afrika oo aan runtii ay tahay in maartay aan loo daba fadhiisan dalal de inaga fogo maartay aan gobolka de aan deganayn oo inala dagaalamaya imaka inaga aad iyo aad guntii gabagabadii maxay tahay fariinta ugu dambeysay shacabka Somaliland adigoo ka faa'iideysanay fursadan siyaasi Mustafa aad u diri lahayd aad isleedahay bulshadu wax badan bay ka taraysaa
fariinta ugu aan isleeyahay dee marar badan aan diro markastoo waraysi laga yeeshana aan dadkeena ku gubaabiyo waxa weeye horta inay midnimadooda ilaashadaan dadka reer Somaliland ilaahay baa isbaday qabaa'il adduunka oo dhan magacyo waa kala sheegta laakiin waxa hubaala in maaragtay wada noolaanshaha waxa la yiraahdaa uu ka bilaabmo iyo isku dantu dadka wada degan tihiin wuxuu doona ha ahaado in markaa dadka horta guud ahaan reer Somaliland ay isku duubnaadaan cadowgooda iyo cid kasta oo neceb cadowgooda iyo cid kasta oo neceb wada jirkooda iyo inay dawlad noqdaan iyo inay dal madax bannaan noqdaan ay meel uga soo jeedaan taas waa qodob sidoo kale inaan loo bahalagelin fariinteedu waxa weeye dadkayga inaan loo bahalagelinin jaarka on qaarna loo amaanin qaarna aan loo qaayin oo Ethiopia oo kale waxyaabaha maaragtay dadka dawladnimadeena ka soo horjeeda ay adeegsadaan ee MOU ay ku daraan waxa kooka inay yiraahdaan xabashidu waa cadow soo jireena waa cadow soo jireena oo maaragtay halkiisa taagnaadaba ma jiro siyaasaddu waxay leedahay dana joogta ma laha saaxiibnimo joogta ma laha haddii waxa walaala lagu yahay ee saxda ah xataa xagga ilaahay maaragtay loo celiyo waxa weeye waa diinta iyo islaamnimada inaga taasa horta walaala lagu yahay wixii intaa ka sokeeya waa dano gaalkana iyo ninka kala diinta tiina danahaas way dhex mari karaan waa wada shaqaysan kartaa islaamkana waa wada shaqaysan kartaa diinta xaggeeda marka loo noqdo lafteeda Jabuutina laguma dhaqmo shariica islaam oo kitaabka quraanka laguma xukumo Soomaaliyana laguma xukumo inaguna lafteena imika kitaabka quraanka iskuma xukumo sida dastuurka iyo waxa qorqorteen Ethiopia ugu dhaqanto in baynu inteena kalena sidaas ay tahay Ethiopia inaan dadkayga loo bahalagelin oo lagu dirina dadkaasi ay yihiin dad aynu jaarnahay ilaahay iskeen baday aynaan jaarkeena inagu samaysan karnaa inaan dooran karnaa ilaahay jaar inooga dhigay isla markaana ay waajib tahay inaynu sida ugu fiican u wada noolaan karro inuu wax isu wadaagsan karro inuu la ganacsan karro inaynu la ganacsano oo inaga Ethiopia dadka ina soo xigaaba waxa weeye waa dadka aynu isku midabka iyo muuqaalka nahay aynu isku diinta nahay inta badan ee oromada la yiraahdo marka aniga ninka Soomaaliga ah ee maaragtay islaamka ah iyo ninka oromada ah ee islaamka ah iyo ninka reer wallo ee islaamka ah iyo Bangladesh-ka islaamka ah aniga way soo kaymid qofka inta maaragtay diida ee wixii kala doonayaan la garanin shariicadaaba isku mid ka dhigaysa inay muslimiintu wada walaalihiin qofka Soomaaliga ma xumaynayo dadkaygana taasaan faraya la xumayn maayo lagana gardarhaan maayo diin ahaan baa lagu soo dhaweynaya jaarnimo lagu soo dhaweynaya inaynu walaalanahay oo islaamnimada ku walaalanahay ee lagu soo dhaweynaya laakiin de kala danayno kala dalbayno sidaa Djibouti aynu kala dalka u nahay iyagana aynu kala dalka u noqonayno oromada iyo Ethiopia dal gaari leeyihiin laakiin cidii aynu macaamilayno wax isdaafsanayno cadow baynu nahay nin kale oo ay isagu doonaya inuu la ganacsado iska kay hortaaga inuu iga dhaadhiciyo maaha marka dadkayga waxaan leeyahay kor toos inta waxa laga dhaadhicin kasto inta badan imika wax fahmeen marka aad baa maasanta Maxamed Qodax